تدانا بسم الله الكريم العظيم. waxaan malaynayaa waxa hadlay laba nin oo iga senior sanaa oo ka mid ahaa golihiisii wasiirada Cabdullaahi Maxamed Ducaale iyo Cabdullaahi Darawo ayaa hadlay. anigu waan ugu imid council of ministers ka xigaal anigoo yar laakiin iyagu markaa rag senior ay ahaayeen warka intaan hayayna ka badan bay hayaan. waxaan qiraynaa in ummadda reer Somaliland maanta salmugi inay u fadhido sababna uu ahaa madaxweynaha geeriyooday Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. sidaa uu Cabdullaahi sheegay haddii la yiraahdo taariikhda Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal cidi ha sheegto waa lagu hafanaya. taariikhdiisa iyo ta Soomaaliya iyo ta Somaliland iyo ta Afrika intaba wuxuu ku leeyahay mid dheer oo waqti u baahan in laga diyaar gareeyo. waxaan aad u xusuustaa maalin maalmaha ka mid ayaa aniga oo yar markaa junior baan dhowr iyo 30 jir baan ayaa wasiirro iga waaweyn isticmaaleen waxay ina Cigaal kaga u diiday ayay waxay arkeen isagoo dhowr jeer leh adeer Saleebaan sida ina yaroo la socodsiinayo ayuu ila dhaqmi jiray nin siyaasi ah ila dhaqmi jiray. dabeedna waxay garteen inuu waxa aan anigu ula tago uu yara sii deynayo maadaama uu yaraan iyo barinimo iyo waxyaalo badan ugu ixtiraamay. عند بييران ومغازير هذا council of ministers كإسنينتا عرنتا كسر شيء رجي وحب شيء ما يغار كود ونولي لأنه وأرنسو أي سكو سيجان أو كرونيك أي دور سكو ضيان أو أبو جوري لأنه أرنتي مركان marka calaamadu bixin jiray waxa uu diidan yahay waxa uu ogoliyo timaha iyo faraha iyo calaamado qolada iyaga wasiiradii taqaanay buula waxaan arkay xaajigii oo marba sii sheekaya waxaan wado oo beebkii iyo calaamadihii aanu naqaanay lumiyay. dabeedna waan fadhiistay dabeedna markaan fadhiistay oo arrintii dhameeyay arrintaas Saleebaan ka hadlay maanta halkan kaga hadli mayne marar dambe inuu ka hadli doono. markii golaha wasiirada uu xidhay ayuu xogeynta ii soo diray koorey ugu yar xafiisku galay waa ka daba galay wuxuu igu yiri waxa la wixii aad adigu aad rabto kooro ee aad adiga maskaxdaada ka yimaado toos ila kaala. laakiin kelmaddu uu isticmaalay waxay ahayd nimanka aan meesha ku hayo ee reerka kelmaddu isticmaalay saasay yay ku soo isticmaalay ee adigu siyaasi toosa oo fakarkiisa dhiiba noqo wixii aan rabtana aniga toos igu kaala. maalintaa ka bacdi ciidima isticmaalay. waayo badan baan isla soo maray waxaan qirayaa inuu aniga ahaa siyaasadda 3 jeer tiraba ayuu i magacaabay saddexdaba anigoo aan ka codsan ayuu saddexdaba isagu iga bedelay anigoo meesha joogo markastana kolumbiisi qaali meesha aan joogo. runtii wuxuu ahaa aqoon-yahan wax badan aan ka garan karo siyaasi waxyaalaha ku xusuusto ee kelmadaan ku daray waxa ka mid ah Axmed Yuusuf Ducaale iyo aniga iyo gees
ayaa mar Addis Ababa marwaduna waa nala socday ayaa Addis Ababa tagnay marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaanana safiirkii Mareykanka ayaa meesha Sheraton ku qaaday dabadeedna madaxweynihii markaanu tii Somaliland ka dhamaynay ayuu kii ambassadorka wuxuu ku yiri madaxweyne wadigii Soomaaliya soo xukumay bal meeshii Soomaaliya waa loo taaglaayay maxaa ku tarinay dabadeedna madaxweynuhu taariikhda aad buu u dulmari jiray si degdeg si kastaba ha noqotee wuxuu iftiimiyey in isaga iyo Cabdullaahi Yuusuf wuxuu recommend gareeyay indirect in qofka Soomaali maanta ugu dhow inuu yahay Cabdullaahi Yuusuf dabadeedna aniga iyo gees iyo Axmed Yuusuf Ducaale iyo korneylkii safiirka ahaa ninkii la odhan jiray Cabdullaahi Askar shirkaan isu wada gelin dabeedna body language-ka iyagii buu arkay inaanu recommendation-ka Cabdullaahi aanu diidanay markuu ninkii naga tegay ayuu taariikh dambe dib noogu dhuftay wuxuu yiri ma maqasheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Cabdirashiid baa qabsanay 2,000 oo qof baan isugu geeyay meesha la yiraahdo Leego waxaan asaasay ururkii irir wixii la oran jiray waxaan damcay buu yiri kooriya gees waa fadhiyaan asaasuu leeyahay inaan nimankii daaroodo kibray futada dhulka ugu dhuftay laakiin waxaan ka soo wada halka uu Cabdullaahi ku qabsaday arrintii way soo weyday 2,000 ee nin isu keenay wuxuu yiri maalinta baanu 5 nin isugu nimid 5 nin shantaani waxay ahaayeen Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdirashiid oo prime minister ka soo dhacay iyo ina Xaaji Nuur Bide iyo ina Naxar shantayada ayaa dawladnimadii qaybinay habeenka ninkii hagayay oo kuraasta qaybinayay oo aniga Cabdirashiid noo kala sheegay korneyl buu ahaa laakiin Cabdullaahi Yuusuf buu ahaa marka ninka Cabdullaahi Yuusuf meel dhow hadhiginina ayuu nagu qanciyay qoladayadii wasiirada ilaa waqtiga decision maker buu wasiirka gaashaandhigga markuu ahaa ee hoggaan buu Cabdullaahi Yuusuf ahaa halkaana saaxiib ayay ka ahaayeen waxaynu leenahay ilaahay jannadiisii ha ugu deeqo ilaahay rabbigii qaadirka ahaa jannada firdawsa ha ugu deeqo ummadda reer Soomaaliland wax badan buu gashay wax badan buu kala laaluush wax badan buu kala dhaqaajiyay wax badan buu ciidan habeeyay wax badan bay nin siyaasiya marmarka qaarkood isku dhaceen wax badan bay niman badan isku saaxiibeen danta uu lahaa waxay ahayd ta aynu maanta joogno in Somaliland gaadho oo ay ka sii dhaqaaqdo waxaan markhaati ka ahay oo aad idinkuna markhaati ka tihiin wixii uu yagleelay inaynu maanta fadhino oo ku dheregsanahay quruxdeed iyo sharafteedina aragno aanu wada ducayno wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh